muuqaalkan aad aragtaan waa berbera waa qayb yar oo ka mida jidadkeeda sida weyn loo casriyeeyey waa magaalo u heshay nasiib inkastay kooban tahay haddana dariiqyo wanaagsan oo dib loo habeeyey goobtan aanu ka baxayna waa galbeedka magaalada berbera waxaan u soconnaa dhinaca Hargeysa dariiqan aanu raacaynana wuxuu yahay kii toos u tegayay magaalada Hargeysa dariiqan ama jidkani waa halka lagu tilmaamo berbera corridor ama isku xidhka berbera la yiraahdo ee ku xidhaya dhinaca xuduudda Wajaale waana dariiq si weyn looga shaqeynayo gacantana lagu hayo badidiisana aad moodid in si weyn loo habeeyey asayaatee dhibaatada jirta ayaa waxay tahay meelaha qaar ayaa waxay yihiin kuwo dariiqu uu marayo buundooyin aan lahayn biraha caabiyi kara ama celin kara gaadhiga markaasi jidkaasi ka duulaya amaba ka gadoomi kara halkan waxaa ku dhacday booyad gawaarida loo yaqaano marshandis qiyaastiina sida uu ii sheegay wadaha mid ka mid ah wadayaasha booyadleyda gurmadka u ah gaadhigan waxa uu soo baxay gaadhigani sanadkii 1979 waa gaadhi aad uga weyn daada 40 jirka balse weli ordaya waxa uu socday dhinaca magaalada berbera si uu shidaal u soo qaado goor habeenimo ayaa uu ka shalwaday jidkan oo ah meel buunda oo ay biyuhu hoos maraan balse aan lahayn biro gebiyada soo celin kara hadba gaadhigii ka duuli kara amaba ka weecda jidka يعني سيدا ay isku gurmanayaan ee aanay ogolayn in loo kala tago waa sida way waa daawanayo waa booyadaadii sawaxankan iyo hadalkan aad maqlaysaan waa wadayaasha gaadiidka booyadleyda ee dhinaca shidaalka una qaada dhinaca Somaliland galbeedkiisa kana keena magaalada berbera oo u gurmanaya midiyaga kamida sida lagu yaqaanana Somaliland gaadiidleyda isku nooca wadata waa isku gurmadaan sida booyadleyda haday noqoto booyadleyda biyaha kuwa shidaalka qaada iyo gawaarida xamuulka iyo basaslayduba waana sababta ay halkan ugu soo urureen waxan oo gaadiida iyo raga ee doonaya gaadhigan dooriya 40 jirka ah inay ka soo saaraan jarka uu ka walbaday amaba uu ka duulay ee markaas ay ahayd in lagu xidho biro soo celin kara hadba gaadhiga sidiisoo kale ka duula amaba ka weecda jidka waa arrin adag hawsha ay hayaan mana fududa waxaase isweydiin leh jidkan dhammaystirkiisu ma sidana mise weli waa u socdaa haddii aad eegto goobtaasi uu gaadhiga yar ee cadi ka soo baxay dhankan midig ee ishaadu qabanayso waa halka gaadhigu ka duulay wax yar haddii taayarku weecdo gaadhi kasta waxa uu ku dhacayaa jar iyo laag weyn oo iyadu biyuhu loogu talagalay inay laamigan hoosta ka maraan waxaase isweydiin leh gaadiidleyda noocana ee u gurmanaya in ay gaadhigaasi booyaddaa ka soo saaraan goobtaasi gaadhiga jiidaya waa gaadhi daahaan ay u dhaxayso muddo in ka badan 25 sannadood daahaan gaadhiga lagu soo gundhinayo ee lagaga soo saarayo laakiin duqda gaadhiga ay halkan ku dhacay ma sahlana in laga soo saaro halkan uu ku jiro waxaanay qaadanaysaa saacado badan iyadoo la adeegsanayo qalab sidoo kalena aan u qalmin in lagaga soo saaro oo ah xadhko lagu jiido gaadhi meel sallaxan taagan miisaankiisuna uu fudud yahay taa macnaheedu ma aha way ka niyad jabsan yihiin raggani in ay gaadhigan ka soo saaraan goobta
haddaba waxaan weydiiyey mid ka mida gaadiidleyda oo ii sharaxaya gaadhiga waxaa ku dhacay. magacaaga ii sheeg marka ugu horeysa. cabdi maxamed xaashwalala. cabdo booyadaya maada waday. maya inaan kaasaa waday. inankaas uu ka gaabsaday inuu inoo warramo. booyada 12 hore dhacday. habeennimadii bay dhacday. 12 habeenimo. marka xagaasu ka soo galay dariiq. xagaagiisii bay ku socday. haye. dabadaba 12 habeenimo baa dhacday. way. kadib adigu wax ku noqdeen ma jiraan. haye. waxaan gaariga ahayn wax ku noqdeen ma jiraan. way. dabadaba waxaan isku daynaa sidaan gaariga meesha u saarnay. wiish med weydeen. ya. wiish med weydeen. wiish waxba ma wiish ma hayna laakiin waxaan isku daynaa booyadaha aanu ka saarnay meesha. marka wiishku idinku qaali garoobay miya marka. ma adigu wiishkii ma baahanin booyadaha iga doonaya ka saarnaa. marka booyadihiinii baa ka saaraya. booyadaha ka saaraya. marka gaariga booyadii keligii ma jiidi karaa. ku jiidi karaya ha. awoodda ma leeyahay. gaarigani waa soo jireen. gaariga jiidaysa. waa gaari weyn oo 19 ah. qiyaastii da'diisu waa imisa. waa ID. way. sida muuqata halka taayirku uu ayuu ka soo galay. laamiga ka soo baxay. sidee u dhacday iyo yara qaatay. isteerinka gaariga beeri waayey. gaariga isteerinka beeri waayey ha. isteerinka isku dhagay. marka xaggan uu soo dhacay. caadi buu jibs. cid wax ma ku noqotay. ma cid Allah ku wax noqotay. istaan gaariga ahaa. imisa qof saarna. laba qof ku saaray inankii asay. marka dhinaca uu dhacay inankii saarnaa. inankii saaray xamu noqon. way. saan u jiidanay imika nayataawo iyo dib. waan daawanayaa xaggaas aad ka keenteen ma soo jiideen xogaa. waxaan ku dhaafnay halka shalay. imika ruuxa wada sidaan uga saarayna filga qono. way. ninkan waa BBC niyo. way. iyo waran marka. gaadhigan daada ah ee 40 jirka ah iyo gawaarida kale iyaguna dabcan ka dambeeyey muddo ahaanba waxay dhammaantood halis u yihiin jidkan ama dariiqan inay ka dhacaan xilliyada aanay filaynin, sida haddii darawalku aanu ahayn mid si weyn u soo jeeda, maadaama dariiqu uu yahay mid ay ku dhowdahay laag weyn oo jar ahaan baabuurtu ay uga dhici karto. isku soo duubo jidka magaalada Berbera dhammaystirkiisu walow aan la sheegin in la dhammaystiray, haddana halkan gaadhigan 40 jirkii ka dhacay waxay astaan u tahay weli in aan jidku fari ka qodnayn, loona baahan yahay dhinaca badbaadada iyo bira ku xidhka meelaha halista gelin kara gaadiidleyda ku yar iyo ku weynba in dib loo eego. anigoo ah Cabdilaahi Maxamed Cali oo la kulankii jidka magaalada Berbera aan kula kulmay muuqaalkan aan idin soo gudbiyeyna. waa mahadsantiin. Ew.